barnaamijka cayaaraha waxaan rabaa in aan ku soo qaato cayaarta dhexmari doonto wadanka Belgium iyo Spain oo labadaas kooxdii soo baxda la cayaari doonto Faransiiska. waxaana la soconaa Faransiiska in uu ka soo gudbay kooxdii Morocco runtii markaan u leexdo sida aan u maleynaynay ma ahayn. runtii aniga waa filayay in Morocco laga awood badaya, laakiin maadaama aan lafsaanteeda aan kasoo jeedo qaaradda Afrika ma rabin taageerayaasha Morocco inaan niyad dilo. waan ogaay in wadanka Faransiiska uu yahay kooxda ugu awooda badan kooxaha iskugu yimid koobka adduunka 48 koox. wayna adag tahay in la celiyo markii la fiiriyo kooxaha kale dadka ay haystaan iyo kooxda Faransiiska ciyaartooyda ay haystaan oo afka hore ka dheelo dhexdooda iyo difaacooda xataa inta badan dadka waxay indhaha ku hayaan weerarka oo aad iyo aad u xoogan, laakiin waxaysan ogeyn difaacan inay aad iyo aad u fiican. William Saliba iyo Aubameyang inay 4 iyo 5 ay joogaan ay yihiin laba ciyaartooy aad iyo aad muhiim weyn u ah. labada dhinacna Digna oo kooxda Villa oo ciyaara inuu geeskan bidixda oo saaray ee ciyaaryahanka kale ee Barcelona Kunde. marka runtii difaacan waa adeegin oo ilaa 2 gool ayaa laga dhaliyay. taasna waxay ku tusaysaa difaacooda xataa si sahla in aan lagu geli karin. Morocco-na waxay ahayd koox runtii aan weerar lahayn. kooxdan haddaysan weerar lahayn wax weyn ay soo kordhi karta ma jirto oo kubadda inta badan gadaal ayay ku celcelinayeen oo difaac ayay ku dadaalayeen. mana muuqan inay wax cabsi ay ku hayeen oo hal mar kaliya ayay gulkooda ay togteen oo Faransiiska ayaga isku taya iyo isku awood ma ahayn. oo waxaan u jeednay in weerarkooda uusan socon karin, dhexdooda inaysan kubadda wadi karin oo inta badan ay kubadda ay gadaal u celinayaan. runtiina waxaan qabaa Faransiiska ciddii ka adkaata ayaa koobka adduunka ku guuleysan doonto. waana koox aad iyo aad u awood badan una fiican. waxaan isleeyahay in Mbembena kobaha oo dahabka oo gool dhalinta asiga ayaa ku guuleysan doona. markaa fiiriso goolka koowaad oo ka dhaliyay wadanka Morocco ayadoo 3 ciyaartooy ay ku hareereysan yihiin ayuu gool caga oo xoogan oo ka dhaliyay. goolkaasna waxaa la leeyahay 77 km/h ayuu ku socday, xooliga oo ku socday, taasoo ciyaaryahankii Dayub runtii ayuu uga aadanaa goolhayaha dhinac ayuu ka marsiyay. goolhayahana wax uu ka qaban karin ma jirtin, ayadoo xooli ku socota ayay u timid, mana lagu eeday karo. runtii goolkii labaadna Dembele ayaa dhaliyay. Mbembe lafsaantiis ayaa ka shaqeeyay, kaasoo kubadda markuu helay dhinac u carara ee ka daba carara. Dembele kubaddaas haddii uu sii lahaa Mbembe ma dhala lahayn, laakiin waxaa ka siisa ciyaaryahano aad u farsamo badan una caqli badan inay yihiin. dhinaca wuxuu la aaday midigta cag hoose ayuuna ka dhaliyay oo goolhayaa waxba kama qaban karin. marka Faransiiska waxay u muuqataa ciyaartii Morocco inaysan culays xoog leh aysan saarayn, ayna ku talageleen goolal badan inay ka dhaliyaan. laakiin Faransiiska waxaan qabaa inay tahay kooxda ugu awooda badan Afrikana kooxdii ugu dambeysay ayay ahayd. runtii Morocco waxaana la soconaana 32 koox markay soo baxday, 9 koox oo Afrikaana inay soo baxeen. hase yeeshee in Masar iyo Morocco kaliya ay soo gudubtay, ay 16 u soo gudubtay, ayagana ay meeshaan hadda ugu dambeyntii ay hareen. si inkastoo aan filayay in wadanka Egypt uu fiicnaa ay ka adkaa kareen kooxdii Argentine, laakiin Argentine iyo markaa isku fiiriso iyo wadankan Faransa isku awood iyo isku taya maaha. waxaa ujeedaa in Faransiiska oo aad iyo aad uga taya badan. haddii aan u leexda cawada cayaarta dhici doonto taasoo Belgium iyo wadanka Spain ay dheeli doonaan. aniga Belgium wax weyn uma hayo oo Belgium sida ay meesha kusoo gaartay si lama filaana ayay ku timid. runtii ciyaaryahanadii ay haysteen oo all generation ayna way ka wada duqoobeen oo Lukaku inkastoo gool uu dhalinayo iyo Kevin De Bruyne iyo Messi ma joogaan. Telemann ayaa ka haray, laakiin ciyaaryahankoodii Onana oo dhexda ka dheelay Villa u dheelay oo aad u fiicnaa oo ka dhaawacmay. marka waxa kaliya oo aan isdhihi karo waxbuu samayn karaa waa ciyaaryahanka Jeremy Doku. asigana runtii ma haysto kaalmooyin aad iyo aad u weyn. marka waxay u badnaa doontaa in Spain oo qaab ciyaareedkeeda uu ku dhisan yahay inay kubadda ay hayaan, ay wareejiyaan, meel aan la filayn ay ka bixiyaan, ay meeshaasna goolal ay keenaan. waana qabaa inay Spain ay si fudud ay u soo bixi doonto, laakiin arrinta waxay isbedeli doontaa Spain markay timaado semifinalka iyo Faransiiska ayaa la ogaa doonaa.
laakiin Belgium wax weyn uma hayo awood ay uga hortagto ma jirto. waxaan fili doonaa inay difaac ay geli doonto oo weer celin ay ku cayaari karto, laakiin waa koox Yurub way aragnay way dhici kartaa in weer celinta ay wax ku samaysa, laakiin uu maleynayo dhibaato weyn inay ku gaarsiin karto. marka waxaan fili doonaa meeshaas in ay soo baxayso wadanka Spain ayaa soo bixi doona. Spain iyo wadanka Faransiiska ayaana dhankaas semifinalka wada cayaari doona. marka waxaan ka wada hadli doonaa yaa finalka imaan doona Spain iyo wadanka Faransiiska, laakiin hadda tayo ay ku celi karto Spain ma jirto. oo Spain waxaan la soconaa cayaaryahanadooda dhexda ka wada dheelo inay yihiin cayaaryahano aad iyo aad kubadda u hayo, meel fiicanna ka bixiyo, taasna ay sababayso kooxda kasoo horjeeda inay niyajibiyaan, ay kubadda in badan ay ka hayaan, oo difaacooda waa qaabkii Barcelona oo kale ayay ku cayaaraan. marka waxaan filayaa caawa in Spain ay soo bixi doonto. marka waxaan sugi doonaa Spain iyo wadanka Faransiiska yaa guuleysan doona.